wasiirka wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa xafiiskiisa ku qaabilay barsaabka gobolka Badhan iyo maayarada degmooyinka gobolkaas oo xilligan socdaal ay ku jooga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Kulankan oo ka dhacay xafiiska wasiirka wasaaradda wafaafinta oo ay goobjoogna ka ahaayeen wasiirka xigeenka wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilwaaxid Cabdilqaadir Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Cilmi Aadan maariyaha TV qaranka Khadar Xasan Cali gaasiga agaasimo waaxidada wasaaradda ayaa ugu horeey waxa ka hadlay barsaabka gobolka Badhan Cabdilxakiim Axmed Maxamuud isaga oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda oo uu tilmaamay in ay salka ku hayso sidii ay wasaaraddu uga gacansi lahayd baahida qaybta miidiyaha. maayarka degmada Xeengalool Yuusuf Wasame Cali ayaa isaguna si gaar ah uga warbixiyay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay degmadaasi. maayarka magaalada Badhan Cabdulla Maxamed Cabdi ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay codsigii ay u socdeen isagoo halkaasi ugu bandhigay wasiirka wasaaradda wafaafinta in gobolkaasi loo helo wariyayaal si gaar ah ula shaqeeya. maayarka degmada Dhahare Cabdirashiid Ducaale Cali ayaa isna waxa uu munaasabada ka sheegay qodobada uu salka ku hayo socdaalkoodu. mas-uuliyiintii gobolka Badhan maayaradii barsaabkii maanta aan joogno xaruntii wasaaradda wafaafinta waxaanu marti idin ka nahay in xagga miidiyaha gobolka nalala dhaqaajiyo. waxaan kaloo intaa ku darayaa ay sheegeen mas-uuliyiintii hore annagu waxaanu nahay gobol xuduudiyaan oo xasaasi runtii arrimihiisu yihiin baahi badan oo xagga miidiyahana waa waxaan jeclaan lahayn system suu shaqeeyo system shaqaalayn oo dhab ah ishiduwi horta in loo sameeyo gobolka aysan wasaaraddeena waxaan ka codsanaynaa in ishiduwi hadduu idinku magacawnaana كانوا بقرام من شاكيهم. ذيك هذا لو قرأوا وشغيوا وده بيسك لو غبيوا وسدوا شغياتنا نونو. gabagabadii wasiirka wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa u ballan qaaday maamulka gobolka Badhan iyo kan degmooyinkaba in ay wax muuqda ka qabanayaan baahiyaha ay gobol ahaan u soo gudbiyeen wasaaradda wafaafinta. afarta degmo ee kale waa soo dhaweynayna degmooyinka gobolka ee gobolada bariga ama Badhan gobolka Badhan marka hore waan soo dhaweynaynaa dhamaantiin maayarada iyo barsaabkaba Badhan. midda labaad waxa aad ka hadlaysaan ama aad ka hadasheen waa mushkilad inta badan caama laakiin la isdhaamdhaamo oo sidaa ay sheegaysaan meelo badani waa runtahay way idinku dhaamaan dhinaca saxaafadda ama warbaahinta. halkiina waxa aad uga hawlgalay la tahay inaad dhageysataan idaacadda waa dhageysataan TV-gana waa dhageysataan waa daawataan. alxaasil waxaan doonaynaa inaan waan idinla qaadanay dhibaatada aad qabtaan inaan wax ka qaban. dhibaatada aad tabanaysaan waxbaynu ka qabanaynaa waxa waynu qaybinaynaa hawshana marka hore gobolka ama xarunta gobolka horta mid waan idinka qarcinayaa oo wasaaradani maaha sida wasaaradaha kale oo ma yeelato isduwayaan maaha iyadu waxay yeelataa wakiilo waa wariyayaalba yeelataa u jooga dee meelahaas wariyahaas unbaa noqda wakiilka wasaaradana isagunbaa noqda. marka imanka laba nin oo xarunta gobolka jooga oo raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranka ka socda miisaaniyadda aan ku darno mushaharkoodu bilaabmo sanadka cusub inta ka horeysana ay wasaaraddu gudna siiso waanu hawlgelinaynaa magacyadana barsaabkan ka sugaynaa isagoo imtixaanka gobolka kaga soo qaaday.